السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سفيرك ورو wax ka qoray dadka ku nool waqooyi bari gaar ahaan raashinka waqtiga su'aalaha ku tagay ka safiir ahaan sidaas daraaddeed ayaa loogu naanaysay safiirka waxda fayda. magaciisa oo dhammaystiran waa Axmed ibn Fadlan ibn Cabbaas ibn Rashid ibn Muhammad waxaan oo inta u dhaxaysa dhamaadka qarniga 9aad iyo bilowgii 10aad ee miilaadiga oo ku beegay inta u dhaxaysa dhamaadka qarniga 3aad ee hijriga iyo bilowgii 4aad waxaan ka mid ahaa dadka u safray Ruushka Moldova iyo sidoo kale saqaalibada degteynta u dhaxaysa Constantinople ilaa Bulgaria safarkaas oo daanaa arrimo siyaasadeed iyo xiriir u dhaxeeya dawladda Cabbaasiyiinta iyo tii Ruushka ee waqtiga ibn Fadlan wuxuu ku dhashay Baghdad dhamaadkii qarniga 3aad ee hijriga waxaana soo doortay khaliifka islaamka ee waqtiga muqtadir bi amri Ilaahi waxaan loo soo doortay ka safiir ahaan iyo waliba qaadi maadaama cilmiga fiqh aad u yaqaanay waxaan safar ka bilaabay Baghdad sanadii 209 ee hijriga oo ku beegan 920 miilaadiga waxaan safarkaas sabab u ahaa dalab uu soo diray boqorkii sagaalibadu oo uu soo diray khaliifkii waqtiga islaamka kaas ku dalbanayay in loo soo diro علماء دينta fahansiisay iyo waliba lacag ay ku dhistaan masaajido iyo xabsiyo waxaanu khaliifku muqtadir u diray wafdi uu ku jiray ibn Fadlan oo ibn Fadlan waxa uu kamid ahaa afartii wafdiga hogaaminayay halka wax ka garanaysa masabka uu ka aglaha khaliifkii waqtiga waxaana siimir dowlad badan sida Bukhara iyo Saabuur Hamadan intii aan gaarin Bulgaria ama koonfurta Russia ibn Fadlan wuxuu ahaa qorayadii u horeeyay dadka Ruush wax ka qoray waxaanu yiri isagoo sifeynaya jirkooda hubkooda iyo maryahooda wadad jirahan u buuxa jirkooduna waa cadaan xoosha oo casaan yari ku jiro waxay xiran yihiin ragoodu maro jirka wada saaran oo kala soo baxayo gacmihiisa mid kamid ah haddaynu isku dayo in yara fasirno waxa weeyaan waa go weyn oo qofku waa go weyn filmaanta madaxa ku daawato Hollywood ka soo waa go weyn halka laga xiriyo laba duluc oo yar u leeyahay xiriyo qorta lagu xiriyo kadib gacanta laba gacmid kamid ah ka soo wareejinaysa marka hartad ka soo ayuu daboolaya takalo banaynaya marka waa faantay ma filimka saa looga jeedo wuxuu waa ragoodu xidhaan maryo jirka wada saaran oo kala soo baxay gacmid kamid ah waxayna ku hubaysan yihiin booranaya fans safe iyo toori markuu ma dhiga hubka waxayna jirkooda ku qurxiyaan tattoo marsan qoorta ilaa cidimaha marka qoorta laga soo bilaabo halka qoorta ilaa cagaha ugu hooseeya wax u marsan tattoo-gaas wuxuu ku farshaxan yahay geedo iyo sawirro kale isagoo koosfeyn wuxuu ka yiri gabadhooba waxay xiran tahay silsilad dahab ama qalin ama sal loo yaqaan silfar ah 10,000 dirham waxay jarayaan silsilad saadaraad niman qalinsan yahay ay gabadhiisu ka silsilad badan tahay tan kale marka isagoo ka waramaya dhaqan xumad iyo nadaafad darrada tujaarta ayuu yiri suuq walba jaayad ayaa u keenaysa weel ay ku jiraan biyaha ugu wasaqaysan kadibna wuxuu ku meerayaa madaxa ayuu ku meerayaa guriga gudihiisa ayaa lagu qoyaa biyo wasaqda ahaa marka isagoo sifeynaya siday kulamada u qabsan ayuu yiri waxay isugu yimaadaan qolal yar oo loox ka samaysan waxayna ku galaan qolal yar 20 30 iyo wixii ka fara badan 20 iyo 30 kana waxa kamid ah jaariyada meesha lagu kala iibsanayo mid walba sarar ayuu leeyahay meeshan xishood ma jiro howluhu waa barax iyo banaan yaa ka helay in Fadlan ayaa yiri isagoo cibaadada sifeynaya iyo cibaadada iyo saxabka u cibaadaystaan waxay caabudaan loox ay taageen oo dhulka inta u qodan ku taageen وجهنا وجه بلا أذان ninka taajirka wuxuu ku leeyahay uu imanayaa isagoo sida hilib caano iyo cuntooyin badan oo kale kadib ayuu looxii ag dhigaya marka yaani waxay ka dhigan tahay waa qurbaan waa loogu dhawaay kala looxan bad ugu dhawaanayay waa ilaahooda kadib wuxuu oranayaa ilaahow ila kulansi saf aan lacag badan ka faa'iido shuruudahaygana aan ka hor iman sidoo kale dadkaasi waxay aasi jireen madaxda marka la aasayo ninka madaxda ama ninkaas ha noqdo nin mansab kule bulshada dhexdeeda noqdo boqortooyada markay dhintaan waxa la aasay wax walba hantiyo jaariyadaha uu leeyahay waa la aasayaa boorgaadhada saqaadka waa la aasayaa dahabkiisa waa la aasayaa waxa soo kale waxa la gubayaa dul lahaa hantiyo weyn say haduu doon lahaa kala doonta waa la gubayaa dhaqanka waxay iskaga yihiin faraacinadii iyo sidoo kale Mongolianka ama Tatarka way la aasi jireen intii hore ilaa 200 meelaha way la aasi jireen madaxdooda markuu dhinto jaariyadiisa waa la dilayaa wuxuu hanti leeyahay hoggaal ula ridayaa saay sameyn jireen marka soo kale waxay gubayaan doonihiisi ibn Fadlan ayaa markaa soo sifeynaya nidaamka halka ka jiray ee siyaasadda wuxuu ka yiri boqorkoodu waxa ku wareegsan boqorka 400 oo nin
qaar waa wasiiradiisi qaarna waa ilaaliyaashiisa khaaska hadduu dhintana way la dhimanaya dhammaantood mid kastoo fartaabor ka mid ah wuxuu leeyahay 2 jaariyood mid waa adeegto oo wax caawinaysa arrimaha yar fudud ee ka caawinaysa tan kale waa freshka sidoo kale 400 waxa ka mid noqon kara uu ku leeyahay jaariyadaha boqorka waxayna fadhiyaan dhinacyada carshi weyn oo laga sameeyay luulka noociisa ugu qaalisan waxaana jira nin la yiraahdo hogaamiyaha ciidanka waa ninka nidaamka boqortooyada iyo ciidamada oo dhan gacanta ku haya marka awoodda dawladda saa gacanta ku haya marka laga yimaado boqorka waxaan inta ku soo koobnaa wuxuu ka yiri ninka aqoonyahanka Carbeed raashanka waqtiga ee dib dhacsanaa ee ku jiray waqtiyadii sanamada iyo badoonnimada marka loo eego khilaafada islaamka ee waqtiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.